saabsan yahay waa qaybtiisii saddexaad ee dhacdo amba kulankii saddexaad ay isugu yimaadaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya. ujeedadiisana waxay tahay heshiisyo lafdhabar u ah xiriirka labada wadan in loogu qato dhigo. laba mar hore u soo dhacay, midkan waa midkii saddexaad oo ka dhacaya dalka Kenya, horena u soo dhacay. waxa ujeedada laga leeyahay waxa ay tahay ilaa iyo inaan heshiis isla galno 7 qodob ka kooban amba 7 heshiis amba isfaham guud inaan sameysano. shirkan waxa markaa uu soo socday muddo 6 bilood ah qabanqaabadiisa. hadda waxa meesha isugu yimid oo maanta goobjoog ka ah guddigii farsamada ee labada dal oo markii la isku celsho gaaray ilaa 80 qofood. Soomaaliya 40 ka socoto iyo dalka Kenya 40 ka socoto. waxay ka yimaadeen dadkaas hay'adaha kala duwan ee dawliga ah. wasaaradaha kala ka socdo, agaasimayaasha qaar ka socdo, waxa ka socdo xogeyaasha guud wasaaradaha joogo, waxa jooga la taliyaasha xafiiska prime ministerka arrimaha kala xiriiro. dhammaan hay'adahaas dhamaantood ayaa ku sugan. dhanka Kenya sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ilaa iyo hay'ad dawli ah oo laga socon malaha. waxaan maanta ka doodaynaa qodobadii heshiiska saldhigga u ahaa. hore u soo diyaarinay, waa isdhaafsanay. hadda marka hoos in loo dego laga hadlo, la qiimeeyo waxaas ka dhacayo. markay barnaamijka dhamaado isla afgarano maalinta Axadda ah oo bisha ay tahay 5 waxaan gudbi doonaa golaha wasiirada labada dal oo ay ka socdaan ilaa 7 ilaa 8 wasiir labada dhinac. ayaga ka doodi doono maalinta Isniinta ah oo bisha 6 ay tahay. heshiiskaas waa la saxiixi doonaa. waxaana saxiixi doono wasiiradii Soomaaliya iyadoo oo madaxdii ugu sareysay dalka Kenya iyo Soomaaliya goobjoog ka yihiin. marka wixii ka soo baxo qodobada ka soo baxo ayaa waxay noqon doonaan qodobo la fuliyo. waxa marka bilaaban doono 6 bilood ama halkii sanaba in dib la isugu yimaado maxaa noo suura galay, maxaa naga qabsoomay. shirkan wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah, xilli muhiim ah oo Soomaaliya ku biirtay East African Community. Soomaaliya ay xubin ka noqotay urur muhiim u ah deegaanka. xiriirka labada wadan oo meel dheer aan ka soo kaxaynay. waa ogtahay dhowr sano ka hor waxaan kala qaadanay safaaradaha, hadda waa isku soo noqonnay. waxa muuqato isku soo dhawaasho aan hore u dhicin oo taariikhda Kenya iyo Soomaaliya soo dhaxmarin. ujeedadana waxa ay tahay in markii ugu horeysay albaabada aan ka soo xirno mustaqbalka Soomaaliya iyo Kenya is qabsadaan ama mustaqbalka labada wadan uu yimaado ciriir soo dhaxgalo. ilaah baa daris naga dhigay, ilaah baa saaxiib naga dhigay. adduunka inta ka dhamaana waa isla deganaanina. marka waa la muuraan in la kala faa'iideysto. ummadda Soomaaliyeed ganacsiga ku fiican yihiin. Kenya suuq badan ka dhex jiro. Soomaaliya waa dal hadda soo korayo, deen aan lagu lahayn, amaankiisa xoogaa ka soo kordhayo. rabitaan badan adduunka muuqda in Soomaaliya investment lagu sameeyo. Kenya marka xiisab ay u qabtaa gudaha. sidoo kale dalka Kenya hadda waxaa aad u xiisanaysa waxaa kamid ah markii ugu horeysay dad badan oo Kenyaati ah ayaa Soomaaliya lacag ka soo diro oo ka shaqeysto oo hadda wiiga hore miidiyaha caalamka ay sheegeen. waxaa kaloo jira kumanaan Soomaali ah ee hanti badan ku leh dalka Kenya. tusaalaha markaan ka soo qaban arrimaha la xiriira dhismayaasha iyo hantida lagu leeyahay dalkan, dadka ugu badan ee maalgashada waa Soomaali. in intaas la difaaco oo sharci ah dadka ku wataan marka arrin asaasi noo ah. waxa kale oo muhiim ah naga dhaxeeyo xagga amniga, xiriirka naga dhaxeeyo muhiim waaye. qodobada lagu heshiin doono ama la saxiixi doono waxaa kamid ah arrimaha amniga, waxaa kamid ah arrimaha iskaashiga difaaca, waxaa kamid ah arrimaha ganacsiga labada dhinac ka jiro. xagga waxbarashada ardadayna jaamacadaha qaarkood kama dhigi karaan dalkan. waxaa kamid ah arrimaha la xiriiro kalluumaysiga iyo waxbaa ka jiro kheyraadka. marka labada dal inay kala faa'iideystaan oo wax la kala helo ayaa muhiimadda ay tahay.